shanqarta aad maqlaysaa waa cimrigaagii oo isgoraya. Waqtigu waa sida biyo oo kale. Haddii aadan cabin, noloshaada ayuu burburinayaa. Waqtiga iyo lacagtu labadooda waxaa lagu qiimeeyaa tayadooda iyo qarash gareentooda. Waxaad ogaataa waqtigu waa dahab. Waqtiguna waa sida seefta oo kale. Haddii aadan jarin, wuu ku jarayaa. Ogow, waqtigu waa sida lacagta oo kale. Waana lacagta keliya ee aad haysatid. Oo waxaad go'aansataa halka aad ku qarash garan lahayd. Marka ha u ogolaanin kuwa kale inay ku qarash gareeyaan. Intaad nooshahay waxa ugu qaalisan waa waqtiga. Waqti kaa tegayna kuguma soo noqdo. Ogow, mar walba maalin ay ku dhalataa hamoodin inuu waa cusub kuu baryay. Waxaad ogaataa inaad dhinaca iyo geerida aad u sii dhawaatay. Noloshaada daqiiqad walba ku soo marta ka faa'iideyso ee ha dayicin. Waxaad uga faa'iideysataa sidaad Allah ku raaligelin lahayd. Ogow, haddaad ogaan lahayd sida dadka dhaqso kugu ilaawayaan geeridaada kadib, waqtigaaga kuma lumin lahayn inaad cidna raali geliso oo waqtigaaga siiso aanan Allah ka ahayn tabaaraka wa tacaala. Hana sugin waqti kaa tagay inuu kuu soo noqdo. Mar walba ilbiriqsi ay tagtaa waxaa tagay qayb ka mid ah cimrigaaga. Waqtigaaga ka faa'iideyso.